kusoo dhawaada muuqaal inaba aan caadi ahayn xaqiiqatan qof walba oo lacag yarna haysta dhul kobcaayana raba dhul mustaqbal lehna raba muuqaalkan hadduu inta arko uu fududeysto way adag tahay jaaniskan si uu mar kaleeto kusoo maro waxaa jooga ceelasha biyaha meeshaan aan taaganahay waa laamiga amaba iskooyska shareeca taaganahay waxaan u leexan doonaa dhinaca shareeco laamigan waa laamiga X control afkooya kasoo bilowday afkooya taga ceelasha biyaha meesha uga aadan yahay iskooyska shareeco masaajidkaas Sheekh Rifaaci yaa lahaa laamiga waxaan uga leexanaynaa ama aan aadaynaa dhanka koofureed ee ceelasha biyaha dhanka koofur waa wadadan hadda aan ku leexanayn waxaa la yiraahdaa wadada shareeco hormuud dooraalay martaa ilaa waxay tagtaa jiha kasto jasiira ka aadi kartaa wadadan waxaa ka aadi kartaa kaxda waxaa ka aadi kartaa ceelasha biyaha dhinacyadeeda meesha rabtida u mari kartaa almuhim waxaan soo helay 10 boos inay yihiin baan u maleynayaa haddii wax ay raacaan wax yar baa raacaya ee qofka leh uu aad u xaraashayo markaan idin oranaya aad u xaraashaya waxaan idin tusin doonaa wax walba oo cadeyn ah oo aad ku qanci kartaan anigoo og inaanu waxa saxda ah oo sida aan u arka maahana si kale aan idinkugu soo bandhigaynin haddana waxaa la yiri laysa al-khabaru kal mu'ayyan hadalka iyo aragtida way kala duwan yihiin waxaan rabaa inaan toos idin tusiyo inta kiiloomitir oo soconay meesha aan muuqaalka ka bilownay kiiloomitirka intuu noqday inaad indhihiina ku aragtaan ishiina inay macalin idin noqoto dhulka hadda aan idin wado deegaanka uu ka baxsan yahay laakiin intuu deegaanka u jiro marka aragtaan iyo qiimaha la iibinayo waxaan u maleynayaa qaarkiin inay la dagaalaan laana dhulka mar walba fursadaha noocan oo kaleeta ah dadka qaar markuu ka dhamaado waxay ii qaadaan macnaha waxay u qaataan inaan aniga dhaafiyo laakiin idin ma dhaafinayo haddii wakiilka aad soo dirsatay wakiil waqtigiisa huraya ee kuu dadaalaya uu noqdo kuma dhaafi doono haddaad aniga iibi tiraahdana kuma dhaafi doono haddii dee qofka aad soo dirto uusan soo dhaqaaqinin amaba uu yiraahdo maanta Jaanis Meerikar waa bini aadan asaguna wuu saxan yahay qofku waa qaldan yahay ma ahan waa saxan yahay laanahu Jaanis wuu weyn karaa waa qof bini aadan ee adduunyo ay la xiriirto laakiin haddii dhankaaga culays ka yimaado fursad lagu waayo darteed uu kugu seego inaadan eedeynin baan ku hormarinayaa jidka shareeco waa jidkan aan ku socono hormuud dooraal u tagaa meeshiisa ugu dambeysana Burundiya fadhiya ilaa waxaa ka rajeynayna inay yoomin alayaam ka kacaan oo dhulka wadooyinkiisa la bixiyo laana dhulka eriyadaas ku xaniban wareeg dheer loo maraa hadda haddii wadadan ay furan tahay xitaa dhulkaas 1 second aan ku tagi lahayn kiiloomitirka intuu hadda noqday ma noqon lahayn almuhim jidkan shareeca la dhahaa waa jid 20 ah ee weyn waxaan kor imaaday hadda boosaski dhulka muuqaalkiisa ama dhul ahaantiisa waa dhulkan hadda arkaysaan dhinacan ama kadigan roobka aad ugumuunan diinin geedahan oo dhan cagaar bay noqon lahaayeen waad arki doontaan ayagoo cagaartay meeshaan waxaa ku jira halka block waxaa iib ka ah 10 boos 10ka boos hadday wax raacaan 3 boos ama 2 boos raaci karto baan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo cabirka iyo qiimaha iyo wax walba idin sheego qofkii muuqaalka soo bilowdo wax aniga macluumaad igama baahna su'aal inuu weydiiyo uma baahna hadduu ku qanco uu qaadana hadduusan ku qancin uu ka soconaya laakiin dadka muuqaalka moodmootiyo ama gudbiyo waxaa laga yaabaa xog meesha aan ku sheegay inay dib ii weydiiyaan taana jaaniskan ii saamixi doonin sababta aan muuqaalka u dheereynayana waa sabab ay dantiina ku jirto oo ah meeshaan ka soo bilaabay ilaa meeshaan idinka iibinaya inaad aragtaan hadda dhulkan kor taagnaa waan ka soo dhaqaaqayaa kiiloomitirkana waa eber waa aragtaan eber waa kiiloomitirka haddaan dhaqaaqayaa deegaanka intuu u jiro ila arka inta kiiloomitir guryaha dhisan u jirsada ila fiiriya qiimaha aan idinkugu sheegana tatacajabun wallahi waa la yaabi doontaan dhulkan waa 12 boos adiga 13 boos aan dhigi karaa ama 12 boos inta hadda qiimahaas lagu iibinayo inta kale qiimahan ma aha waxa qiimaha loogu iibinayana dan baa loo iibinaya qof walba bini aadan markuu dan yeesho dhulkiisa uu xaraashi karaa taa xor u yahay waxa
boos walba cabirkiisa uu noqonayaa 20 lagu dhuftay 15 wuxuu leeyahay dukumiinti waliba waxaa u jaran rasiid iyo sabarloog dhulka ceelasha qaarna waa dhaxal koob iyo sugnaan qaarna rasiidkiisa sabarlooga maxal uu la socdaa dhulkan waa dhulka rasiidkiisa sabarlooga wata oo dhameystiran rasiid iyo sabarloog dhaxal koob iyo sugnaan wixii soo dhan way ku xiran yihiin magaalada muqdisho waa tanaa waxaana arkaysiin waa kaxda ilaa ceelasha sida isugu xirmeen deegaanka waa kan dhulka hatta ka soo dhaqaaqay xitaa 200 tilaabo ma socdo waana aragtaan deegaanka saas uu kuugu muuqanayo dhul dalcad saaran deegaankana sida aa u arki karto dhulkan marka dukumiintigiisa waxa idin waa rasiid iyo sabarloog dhaxal koob iyo sugnaantiisa way ku xiran tahay rasiidkiisa sabarloog wuu wataa cabirka waa 20 lagu dhufto 15 meesha biyihii way leedahay laakiin koronto ma lahan guriyo kama dhisno deegaanka wali soo ma gaarin laakiin deegaanka wuxuu u jiraa 1.7 kiiloomitir iyo 700 tilaabo uu deegaanka u jiraa deegaankan hadda arkaysaan waa goofafkii dadkii asal u deganaa ee lahaa deegaankoodii laakiin deegaanka ama xaafadda aadka loo degan yahay ee biyaha korontada masaajidada dugsiyada leh wuxuu u jiraa 1 kiiloomitir iyo 700 tilaabo waa 1,000 tilaabo 1,700 tilaabo waay waxa dhan oo lagu aqrinayo wax weyn ma ahan marka waa qiyaasi kartaa inuu qasab tahay inuu deegaan soo gaaro dhulkan 1 kiiloomitir dhibic 700 waay waan indhihiina oo idin ku tusinaya magaaladiina kor waa ka aragteen halkii boos qiimaha lagu rabo waa lacag dhan $1,800 oo aakhir shay ah 1 senti lama dhimaayo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay inta ku soo wacaan ku yiraahdaan diyaar u ah 10 kaba waa qaadana ee maxaa la iga dhimaya 10 kaba ma ahana baloog dhan xitaa haduu meesha ku yaalo aa qaadanayso qiimaha wax laga dhimaayo ma lahan 1,800 waa qiimaha aakhirka ah ee aad ku helaysid dhulkan wuxuu ku yaalaa ceelasha biyaha gadiga koofureed ama gadiga hormuud dooraale burundiga shisha meesha joogaan ma la gaarayo deegaankana waa kan dhulkan u muuqdaa wadooyinka uu dhulka leeyahay ama boosaska jidadka ay leeyihiin waa 10 mitir cabirka booska waa 20 lagu dhufto 15 dukumiintigiisa waa rasiid iyo sabarloog dawladda dhexe Soomaaliya dawladihii ka dambeeyay ah ما شاء الله تبارك الله laamiga kiiloomitirka aan ka soo saarnay ilaa dhulka marka aan imaanay asagana waa arkaysaan laamiga wuxuu u jiraa 5 kiiloomitir iyo 100 tilaabo waa laamiga wuxuu u jiraa 5 kiiloomitir 100 tilaabo wax macnaa ma lahan waa hal block laamiga wuxuu u jiraa 5 kiiloomitir oo kaliya deegaanka ama xaafadda la degan yahay ee sida caamka loo degan yahay haddaan u sii soconaa muuqaalka ma aanan kala jarinin xaafadii aan tirinta markaan u galno oo gudaha xaafadda aan tagno waad arkaysaan inta kiiloomitir oo xaafadda u jiro iyo qiimaha xaafadda ay marayso waan idin sheegaya marka qiyaas buuxdo waxa qaadanaysa ah dhulka deegaanka ah ee 1 kiiloomitir iyo 700 tilaabo u jira qiimahan haduu marayo kaaga 2 sano gudahooda qiimo intee la ugu gaari kara waa wax qofka xitaa weligii aan dhulkadanin cid kale bini aadan inuu la tashto uusan uga baahnayn qof bini aadan ah inuu la tashto ama uu la showro ama uu yiraahdo niyo ii qiyaas dhulkan koormo wax noqon kara uma baahna marka lagu sheego xaafadda la degan yahay iyo asaga inta kiiloomitir oo u dhaxayso iyo qiimaha xaafadan ay marayso qiyaas buuxdo laano deegaanku wuu fidaya maalinta ka dambaysa guriga la dhisaa waa la sii gudbaa guri kale la dhisaa wadooyinku iska bixi doonaan وبالله وانا ما نديغانكي حافظان ولا دكنيه وريبا ديغانكيدا ما شاء الله تبارك الله وارك كرتان دولكان هذا حافظه ku yaala qiimahooda waan idin sheegaya kiiloomitirka ila arka 1 kiiloomitir dhibic 700 gaarigo socdaa saaray laakiin waa 1 kiiloomitir iyo 700 hadaa rabto stop dheh zoomna soo dhaho 1 kiiloomitir iyo 700 tilaabo boosaska hadda aan ka soo tagnay xaafadaana u jiraan xaafadan kaalmooya la yiraahdaa waxay ka tirsan tahay ceelasha biyaha boosaskeeda halkii boos waxaa la iibiyaa 11,000 ama 12,000 nus boos waxaan hayaa 6,500 lagu rabo ee xaafadan ku yaala waliba ereyadan ku yaala nus boos
6,500 lagu rabo oo eriyadan ku yaalaan hayaa nus booskeeda hadduu 6,500 yahay booskeeda muxuu noqon karaa 13,000 12,000 11,000 haddii lagu helo waa nasiib xaafadan qiimaheeda 11,000 oo dollar maraysa waxaa dhul u jira 1 kilomitir iyo 700 oo tilaabo oo laga siinayo 1,800 oo dollar takhayal adeer hurdada ka kaca baraaruga hurdada ka kaca lacagaha akoonka idinkugu jiro aw mushaarka wixii aad biilasha ka bixisaan wixii idinkaga soo haro dhulkiina hooyo ku maalkashta dhulkan maalinu wuxuu ahaan jira 1,800 maantana wuxuu marayaa 11,000 12,000 13,000 uu qiimihiisu marayaa xaafadu BL leedahay wixii sideeda kalena deegaan ahaan waa deegaan dhameystiran waxaan ugu talagalay inaan idinku baraarujiyo muuqaalkan tusaale aad ka dhigataan hurdadana ka kacdaan dhulkiina hooyana aad maal kashataan hadal badan haan ma buuxiyo muuqaalka wuxuu la dheeraaday inaa wax fahantaan liajligeed warkaan badan maxaa waaye muuqaalkan dhinka badan anigu waxaan dhul ahayn kaalama hadlaayo laakiin waa inaan wax ugu sharaxo dadka igu xiran waxaa ku jira dad u baahan kaliya muuqaalka inay arkaan go'aankan inta qaataan dhulka iibsadaan marka dadka haddii aan wixii boobsiiyo ama 5 daqiiqo 2 daqiiqo ka dhigo waxba kuma fahmi karaan laakiin maanta muuqaalkan hadday daawadaan aniga uma baahna inay su'aal weydiiyaan laanahu sharaxaad dhameystiran oo war la'aan haystaan 1,800 dollar hadaa haysatid waxaad heli doontaa dhul xaafadan 12,000 maraysa u jira 1 kilomitir iyo 700 oo tilaabo هذا حافظ وكذا مقالك أنت كراسك جرى لأنه لامي هراء واركتين لامي جي ما هذا الشارع ووضد إسكوسك وحاركتان كيلومتر كواكاسا لامي جبوسس كان كسر صار كيلومتر كوحي أجران 5 كيلومتر يهال بقول هران وادن كل شيء والسلام